qisadan waa qiso dhab ah oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed waxayna ka dhacday Kenya gaar ahaan xeryaha Dadaab ee Ifo. Waxaan ku noolaa magaalada Kismaayo, waxaan ahay sabool. Waxaa ii jooga wiil qalalaaso iyo dhibaatooyin badan. Kadib waxaan go'aansaday in aan Soomaali iskaga tago oo Kenya iska aado. Waxaan imaaday Kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Ifo. waxaan ku soo degay reer aan qaraabo ahayn muddo badan oo aan reerkaas dul saarneen. Subax walba waxaan u kalihi jirnay UN-ta si aan u helno kaarka raashinka lagu qaato. Muddo badan kadib alxamdulillah Ilaahay wuu inoo fududeeyay. Kadib reerkii aan la nooleen oo aan dul saar ku ahayn ayaan ka dareemay dabeecado oo kuwii hore ka duwan, waayo qofka waxaa la tag lama dhahay wuxuu ku tagaa la tus. Anigoo waxba haysanin ayaan go'aansaday in aan iskaga tagno reerkaan la nooleen. Kadib waxaan go'aan ku qaatay in aan raadsado guri kiro oo aan aniga iyo wiilkayga degno si aan uga maarano oo aan uga kaaftoono reerkan aan la nooleen. Waan guuray kadib mas'uuliyado badan ayaa isoo fuushay, waayo waxaa la iga rabay guriga kiradiisa bil walbo iyo wixii aan cuni lahayn aniga iyo wiilka. Wax shaqana ma aanan haynin. Kadib waxaan go'aansaday in aan shaqo raadsado oo fadhiga aan ka kaco. Wiilkaygana iskuul ayaan geeyay, waayo iskuulada xagga waa lacag la'aan oo wax lacag ah lagama qaadayo. Kadib waxaan soo helay shaqo. Subaxii waxaan u kalihi jiray suuqa, duhurkii ilaa galabtiina xaafadaha ayaan dharka u dhaqi jiray. Nolosheena maalinba maalinta ka dambaysa way sii adkaanaysay. Wax garabna ma aanan haysanin. Walaalahaygana wax hanti ah way haystaan, balse wax ay ku siiyaan iska daayay. Wixii yaraa aan haystay iyo nolosheena ayayba ka sii xun yihiin. Wixii aan shaqeeyaba waxay ahaayeen wax aan sii cunayno, waayo ma jirin wax meel noo dhigmaayo oo aan isleenahay beri ayaad u baxsan doontaan. Marmar xitaa baahi ayaan ku seexan jirnay. Maalin ayaan la kulmay gabar aan saaxiibo ahayn. Kadib way wareysatay, wareysi dheer oo na dhexmaray ayay waxay wareysatay waqtigii aan soo galay qaxootigaan imaaday iyo xaaladeeda sidee tahay. Kadib waan u sheegay xaaladda aan ku suganahay iyo marxaladda aan ku suganahay iyo sidaan ku noolahay. Iyada waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. Waxay ii sheegtay habeenada ka mid ah intay soo wacday inay baxayso oo ay safar yihiin. Markaasaan weydiiyay meeshay u jeedaan oo aan dhahay xaggee u jeedaa. Kadib ayaa waxay ii sheegtay in ay baxayso oo Mareykan ay u jeedo. Kadib waxay ii sheegtay in ay rabto in ay wiilka ii qaado si ay nolosheena isku bedesho. Taasna way dhacday, anigana aad baan ugu farxay arrintaas. Kadib way baxeen, Ilaahayna nabad wuu ku waday, wayna nabad tageen. Kadib waxaan ku fikirayay in ay nolosheeda isbedeli doonto maadaama wiilkayga uu ii baxay oo Mareykan uu ii aaday. Waxaan isdhahayay nolosha ugu heer sareyso oo ugu wanaagsan ayaad ku noolaan doontaa. Kadib muddo badan oo laga joogo 4 bilood oo aniga iyo wiilkayga aanan wada hadlin oo aan isweynay. Anigana saacad walba iyo sakin walba waan wacayay, laakiin hal mar xitaa la igama qabanin. Muddo badan kadib ayaa la iga qabtay. Anigana wiilkayga xiise badan ayaan u qabay. Kadib wiilkaygii ayaan la hadlay. Waxaan ku dhahay hooyo maxaa ii soo wici weysay? Xitaa anaa ku soo wacay mobilka maxaa iga qaban weysay hooyo? Maxaa iigu dhageysatay? Wuxuu iigu jawaabay hooyo waqtiyada aan nasanayo oo kaliya maxaa ii soo wacdaa. Aad baan u niyad jabay hadallada uu igula hadlayo wiilkayga. Waxaan u sheegay, waxaan ku dhahay hooyo 2 maalin xitaa wax maanan cunin, waan xanuunsaday. Shaqo xitaa waan joojiyay waayo waan xanuunsaday, waayo waxaa la iga qabtay gacan iyo lug. Hooyo hadda ma dhaqaaqi karo, aniga meel aan u dhaqaaqana ma garanayo. Hooyo lacag ii soo dir. Wuxuu igu dhahay hooyo lacagihii dhan waan qarash gareeyay. Hadda lacag shopping oo kaliya ayaa iigu jirto. Shoppingkaygana kama badno. Kadib aad baan u sii niyad jabay oo aan u calool xumaaday. Xitaa waxaan ka sheelayay asbaabta aan wiilkayga wanaaga badnaa aan iskaga fogeeyay. Maantana hadal wanaagsan oo igula hadlayo. Kadib waxaan bilaabay in aan tuugsado, waayo xoog aan ku shaqaysto ma haysto. Dadna ma qabo oo walaalahaygana way i deeriyeen. Hooyo iyo aabbana mar hore ayay dhinteen. Xitaa wiilkayga aabiis mar hore ayuu dhintay. Wax ehel iyo qaraabo ii joogana hadda ii jirnaxayana ma jiro. Hadda waan tuugsadaa,
wiilkaygana muddo 15 sano ma aanan wada hadlin. intaasna waan tuugsanayay. waa qiso xanuun badan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo taabo, haddii aad hore inoola joogtana waad ku mahadsan tahay. videoga like inoo saar, share inoo si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo sidaada oo kale ah.